wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta dawo waxa ay gaarsiisay degmada Xudur ee xarun goboleedka Bokool xilli halkaasi uduro ay ka dilaaceen waxaana dawadani loogu talagalay degmada Xudur Rabdhuure oo dhammaantood xaaladoodii aad uga liidata dhinaca adeegyada caafimaadka dawadan ayaa waxa lagu wareejiyay maamulka gobolka Bokool iyo kan degmada Xudur ayagoona gaarsiin doona degmooyinka iyo deegaanada loogu talagalay waxaana goobjoog ka ahaa halka dawadaasi loogu wareejinayay maamulka gobolka Bokool iyo kan degmada Xudur wasiir ka tirsan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo maamulka gobolka Bokool iyo kan degmada Xudur ugu xoreyntii ayaa waxa dawadaasi Xudur la gaarsiiyay ka hadlay gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool Maxamed Macalin Ahmed daawo wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya iyo waxaan dirtay geed Xudur magaalada daawadaas aysan argaasan marka aydan kama naqaan wasaaradda caafimaadka wasiirada kama naqaan maadaama daawo aad ku qornaan geysay tan marlama daawo geysay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo isagu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu tala gashay isbitaalada gobolka taasoo laga talagalay in la deersay gobolada Soomaaliya oo dhammaantood gobolada Soomaaliya la deersay meel yar أنت كلام داويكم جبت كدابي دولة فدرالية الصومالية سأستراتي جيجا ما إنشاني داوي كان دقيقة حضور إيوه دقيقة قدامبنتي ayaa waxa soo dhaweeyay dawadan la gaarsiiyay degmada Xudur ee xarun goboleedka Bokool wasiir ka tirsan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ayagu kala ah wasiirka maaliyadda Xasan Ibrahim Xasan Lugbuur iyo wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdullaahi Aadan Axmed Balaag daawada oo dawladda dhaxadkay lishani oo ogeeka ka sugan konjoog anama la raawo degmada Xudur ida ka faraxsan wali rajeynaa in ay daawada sidii leenka talagalay in shacabka liinku hagaftaro markastana ma walgeeyga baahida daboolaw ma walaha takooy dareemana baahida ku jirto gobolka Bokool khaasatan hata degmadii magaalada Xudur ku jirto dareeman wali rajeynaa insha Allah in email raayay kaleedo deegdan ku sii badan oo la hanka deegan doono gobolka oo khaasatan hata magaalada madaxda taas eediyada ka faraxsan in gobolka waxaan hadda farxad u yaani dalidii waa bulshadii oo ku dhalanay Bokool email raay baahi badan jirto email raay ogaayni dhinaca daawada iyo yaani bani'aadamnimada marbadan ku hadalnay hadii Ilaahay raxiim ah waafajiyeedo deeqasay kurtiyo ka faraxsan Maxamed Aadan Socdaal TV-ga dawladda Jubaland magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokool